إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد waxa uu xisaabiya oo tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinna laba shay oo quru u baahan yahay buu leeyahay ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح markaynu milicsanayn yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn markaad aragta awooddooda juhdiga tamartay bixinayeen waxay yaqaaneen waxay qaybsanaayeen marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana oo kaannamaa marka lagu yidhaahdo waa bukhaari intaasoo 100,000 oo xadiis buu qaybsanaa waa imaamu axmed oo 1 milyan oo xadiis buu hayay waa awsaaciyo intaasoo 100,000 oo xadiis nin walba marka lagu yidhaahdo 100,000 oo xadiis oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhanbaan kitaabba ku qorayna uu korka ka watay bale ay subax u fadhiisan jireen sidaynu qur-aanka subaxa ugu fadhiisanaaba ee xadiista subaxa ugu fadhiisan jireen dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dol akhriyi jiray wuxuu maxfuudaadkiisoo dhan intuu ku dol akhriyo ayaa laysla sixi jiray oo la kala eegi jiray innaga maxaa daaqadan iyo awooddeennii xaggay ka baxda waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhannay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in daaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamme ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isranno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsiladaynagu xidhan yihiin awooddii iyo daaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsiladaynagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska beddelaya waxa uu xisaabiya uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinna laba shay oo quru u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodi inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye soomaalidu waxay idhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaa bay idhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirunbuu xooggiisa arkaa bay idhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصح صالح المشجعة in la helo dad fiican oo aad gargaarsato oo raacdid oo aan muthbitiin ahayn aan dad dhulka kugu nabaya ahayn dad kor kuu qaadayo kor kuu sii wadaya oo aan muthbitiin ahayn aan dad dhulka kugu nabaya ahayn dad kor kuu qaadayo kor kuu sii wadaya ويبني مجده جدلا فروح الفاتح
ليصبح همة ترفع